inta garanaysa xildhibaan maxamed abiib iga gaarsiiyay videoga maxamed wuxuu noo xatiray zeylac man haynaaye maxay noo taraysaa maanta aan ka faa'iidaysano waxaan garanay maan u malaynaa taariikhda dekadii la sameeyo afar qof lagu shaqaaleysiyo waxa ka muhiimsan in taariikh yeelis taariikhda zeylacna waa meesha kaliyaatay amxaar jabkooga aan ku xusnaa zeylac weyn cali kala geeda garanay habeeyay cali kala geey meeshii boqorkii daalimka ay aala booro ku dilay waa halka meeshii ciyaar walwala inta loo tumay lagu dilay halka bay ahayd marka zeylac baa ma oran karaysa taariikh weyn taariikhdu inuu muhiim kaaga ahaato weyn amxaarka amoodaysid dad amoodaysidna malaha degida bursiga waxa kama yaqaana maan malaynaa amxaarka orad ciisaha iyo daaroodka soo weydii iyo hawiyaha degan Itoobiya orad soo weydii kuwaasa ku sheegi doona amxaar waxa uu yahay sidii kuwaba ku sheegi doona amxaar waxa sheegaysaa dhul aan la yeelatide xataa jiritaankaaga ay ka soo horjeedaan hadday karayaan qof Soomaaliya inay ka wada baabiyaan adduunka saaxada adduunka inay ka baabiyaan ka baabin karlaan wayna karin laakiin marka yaan laga dhaadhicin arrinkan inuu yahay dekad yar oo la maal gashanay inuu yahay zeylac baa sheegaysaa berbera xataa anuu ma ogolinay najaastooda ay leeyimaadiin uma ogol haddii ay dekad ay maal gashanayaan waa iyagoo nadabo fadhiyeen maaha iyagoo hor fadhiyo oo maanta iyagu naga gacan sareeyo gacantii lacagta na siinaysa ay tahay amxaara ma waa iyagoo nadabo fadhiyo adoon noo unba amxaara dukeena ka talin karaysa dukeena wax ku yeelan karaysa nin kastoo amxaara dekada ka shaqeynaa nin Soomaaliya waa inuu sida carabtuba maaragtay ay dhulkooda ka yeesho waa inuu damaanadiisa u qaado weyn waa inuu lacagta uu soo ku shaqeysto xataa in lacag maxaa wixii iyagu dadka ka qaaday inay baadin laga qaado weyn waa dhukeeni waxay joogaan kowda marka zeylac taariikhda beelada 19 ugaasay beesha ciise meeshii lagu dhaariyay weyn aala boor meeshii lagu dilay weyn amxaara zeylac markay aragtay jabkeedii bay aragtaa amxaara Soomaali markay aragtay jabkeedii bay aragtaa sheekay yaro maalgashiyo lacag yaro la siinayo oo masaakiin hana qorina amxaar dartii masaakiin hana qorina dekedan zeylac hadii la doonayo in la maalgashado oo zeylac lagu soo celiyo magaaladii ay hay'adda taariikhda lahayd ay lagu soo celiyo anu waxaan ugu baaqayaa war 100 nin oo Soomaali ah oo lacag leeyahay intay urursadaan ama adduunka ka soo qaataan hasameeyaan iyo dekad fiican ha ka sameeyaan dekada markay ka sameeyaan ilaa ka masuula shaqaalaha yara ilaaliya biraha dhex yaala dekada waa inuu noqdo qof Soomaali weyn amxaar inuu meesha soo dhex joogsado isaga oo mudana waa in looga dhaarto weyn marka adu hadii aad garanaysid dekadaad is u leedahay oo dad gaar oo is ku matashay inaad dekada iibi laakiin zeylac inuu amxaar ay timaado anu dhagar ba ka taagan dhagar ayaan ka taagan wallahi billahi dhagar ba ka taagan waayo waxay ka dhigantaa waa maalinkan amxaar u jabno weeyaan war amxaarada warkooga doonaysiin orday Itoobiya tagay ordo sooyaga Soomaalida dhibka ku hayaan shalay meeyeen gabadh xildhibaan Allah u naxariistay juweeriyo waxay ku dhex jireen maxay ahaydeen jigjiga dhexdeeda ay ku jireen dadkan waa dadka kaliya aaminsan Soomaalidu inuu dhul adduunka ku lahayn qaxootiyiin bay aaminsan dhulkaaga waa doonaysaa mudana inuu ugu socdo xataa Jabuutidana arkaysan anu waxaan jecelahay dariiqa ay mareen in loo xisaabiyo lacag laga qaado waxa sheegaysaa dekedan leenahay meelaan sumcad ku leenahay meel iyagu jabkooga ka dhaxarkayaan amxaar wax la soo dhaweystay ma in abiibo fudeedka la joogso waka